kala duwan haatana wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska maamulka Puntland Sahra Cabdi Xirsi oo la hadashay barnaamijka dhacdooyinka maanta waxay uga warbixisay munaasabad ay maanta ku qabteen Puntland munaasabadaasi oo ay uga hadlayeen 25 November maalinta ka hortagga tacadiyada ay la kulmaan haweenka Soomaaliyeed. Puntland waxa ay ka mid tahay meelaha ay ka dhacaan kiisaskaas hase yeeshee waxaa jira rag loo xukumay qaybtoodna loo dilay kiisas ay geysteen oo kufsiya. Sahra ayaan hor dhignay su'aalahaas iyo kuwa kale anaga maanta sida ay caadi tahayba sanad kasta 25 bisha markay tahay November ilaa 10 December waxaan sameynaa barnaamij aan ugu magac darnay 16 dhaqdhaqaaqa ama 16 activism kaasoo loogu gol leeyahay in tacadiyadka loo geysto ee dumarka nooc kastaba ahaadee laga hortago isla markaana la saakaashado si looga wada shaqeyn lahaa kaliya ma ah dawladda waa hay'adaha dawladda la shaqeeyo dhan iyo shacabka marka waa 16 cisho oo barnaamij ah kacdoon ah baraarujin ah wacyigelin ah loogu talagalay ka hortagga tacadiga loo geysto gabdhaha wasiir dhacdooyin ugu baaba hadda dhaca oo ay ka mid yihiin dhacdadii Boose ka dhacday inta gabadh dhalinyaro la kufsaday hadana dil loogu daray guud ahaan Soomaaliya oo way ka dhacaan dhacdooyinkaas oo kale waqtigan ayadoo la joogo waqti casri ah isla markaasna la cirib tiri kara tacadiyada haweenka ka dhanka waxyaalaha ay soo celcelinay kiisaskaas inay dhacaan maxaad u sababeyn lahayd dhacdooyinkan hadda nagu cusub iyo dhaqamadan nagu cusub ay geystaan dadkan fulka geysanaya tacadiga geysanaya hadda ka dhawaajisoo kale gabadhiinta la kufsaday hadda la dil loogu daray dil waa dhacdooyin laga soo minguuriyay meelaha reer galbeedka gaar ahaan waa dhacdooyin nagu cusub waa garanaysaa hadda bulshadii waxyaalo badan ee horumarka gaartay dhinaca social media dadkii waa isku dayanayaan qofkan markuu qof xun yahay qof maaragtay oo maaragtay dhaqan fiican lahayn asluub fiican lahayn barbaari fiican soo helin waxyaalaha xun maaragtay bulshooyin kale ay sameeyeen ka soo qaadanayaan oo ka soo guurnayaan markaas wuu imanaya bulshadiisii marka dhacdooyinka anaga waa lagu cusubtaa waa wax lagu cusub hore looma aqoon jirin hore waxaa loo aqoon jiray gabadha marka kufsi loo geysto ninka marka kufsi u geysto iska tagi jiray laakiin hadda waa la dilayaa waan dhacdo laga keenay banaanka marka anaga waa ka hortagaynaa kiisaskan oo kale Puntland marka ay ka dhacaan waa kiiskii labaad oo loo xukumayo oo maxkamad loo geynayo bal qaybtood waxaa lagu fuliyay xukuumad dil ah marka xukuumadaas oo kale haweenka Soomaaliyeed maxay uga dhigan yihiin wax fiican waa wax laga dagan karo Puntland waa wax fiican waa in la ciqaabo qofkii ciqaab geysta oo dad ciqaabo oo gardareysto oo maartay dilo oo maartay intuu qofsada dilay waa in la ciqaaba bulshada waa in laga qabtaa si uu ciqaab kale dadka u sii dhibin oo intuu marka waa wax fiican Puntland looga dagan karo in nimankan waxaan geysanaya gabdhaha intay kufsadaan dil ugu daraayo ayagana la dilaayo waa wax cashar la rabo bulshada in la siiyo oo ninkii waxa ku talagalay waxa raba inuu sameeyo baarsi uu ka digtoonaado marka waa arrin fariin loo diraayo nimanka dhaqankan sameynaya marka waa arrin fiican waa meesha kaliya Puntland ay ka dhacday ilaa hadda kiisas badan baa dhacaysan ka warayna Soomaaliya oo ka dhacay lama hayo qof loo dilay waxyaalo badan baa ka dhacay mid waa ogad burcad mid afooye in 10 gabdhood inta la kufsaday la dilay banaanka la soo dhigay ilaa hadda wax laga ma qaban marka dhacdooyinkaas ay sameynayaan nimanka mujrimiinta ah in la ciqaabo waa cashar loo diraa iyo fariin loo diraa bulshada si ay ugu waara qaataan oo dib dambana ay ugu sameeyeen marka anaga way naga go'an tahay Puntland inaan ku weydiiyo soo laabatid ka haween ahaan nimanka kiisaskaas oo kala geystay in maxkamad la hor istaajiyo oo dil toogasho lagu xukumo maxay idin ka dhiganta waa wax fiican wax aad u wanaagsan waa guul waa wax fiican waa wax lagu farxo taas waxay ku siisaa in sharciga iyo cadaaladda la ilaalinayo in loo aaraayo dhibanaha in xaqiisii la siinaayo dhibanaha tacadigi loo geystay in laga abaalmarinayo dadka u geystay marka bulshada way u fiican tahay haweenka way u fiican tahay isla markaana qaanuunka iyo dastuurka iyo diinta islaamkana way u fiican tahay waa wax wanaagsan oo fiican tahay in la isaga daydo waya wasiir hadda barnaamijka 16 maalmood oo aad qabanaysaan waxyaalaha oo dubdhaxaadka oo aad doodina ku saleynaysaan maxaa kamid ah baraarujin gabdhaha la baraarujiyo in bulshada la baraarujiyo in kacdoon la sameeyo in lagu wada shaqeeyo hay'adaha maartay hay'adaha ammaanka laamaha amniga laamaha ku shaqo leh tacadiga wasaaradda caafimaadka wasaaradda haweenka mid cadaalad in la wada shaqeeyo oo maartay loo wada tafaxiito la isugu tago cudud meel la isugu geeyo sidii looga hortagi lahaa tacadiga iyo wixii laga qaban lahaa isla markaana waxaa isweydiinaa sanadihii la soo dhaafay maxaan qabanay maxaa noo hirgalay oo tacadiga aan ka sameynay maxaa hadda noo qorshaysan marka waa barnaamij abaabul maartay kicin baraarujin
oo wada shaqeynaa bulshada iyo hay'adaha isla shaqeynayaan waa barnaamij aad u muhiim ah bulshada u baahan tahay wasiir marka laga yimaado kiisaska aad kala simantihiin maqalkooda iyo aragtidooda dadka kale ama wasaaradaha kale ma jiraan kiisas si gaar ah wasaaradda loogu soo xiriiriyo oo aad la kulantaan kufsi kasta iyo kees kasta oo ka dhaca gudaha wasaaradda si toos ah oo la soo xiriirtaa ama loola soo xiriiraa wasaaradda shaqooyinka loo idmaday ka mid tahay in gabdhaha maaragtay tacadiga loo geysto ay u adeegto u shaqayso marka kiis kasta oo bulshada kufsi kasta oo dhaca annaga waan nala soo gaarsiiyaa wixii ka qaban karana waa u qabanaa waxaan usii gudbinaayo kale meelihii kale oo gabadha usii baahneed in loo sii gudbiyo sida caafimaadka daryeelka ah sida maaragtay hay'adaha laamaha ah marka wasaaraddeena anaga dadka aad bay noola soo xiriiraan oo noola soo gudbiyo si aan anagana xogtii u aruurno oo hadhowna aan maaragtay uga falcelino waxaan ka falcelin karno aan ka qaban karno wasiir Sahra aad iyo aad baad u mahadsantahay kelmadda ugu dambaysa ee baraarujinta iyo la dardaaranka aad guud ahaan haweenka Soomaaliyeed u diraysaa maxay tahay haweenka waxaan u dirayaa Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay foojignoodaan inay iska ilaaliyaan maaragtay meelaha khatarta oo looga imaan karo in ay wada shaqeeyaan oo dumarku isku xirnaado in hawshan iyo dhaqankan hadda lagu soo kordhay dhaqamadeena lagu soo kordhiyay ay tahay mid iyaga naftirkooda laga rabo inay wax ka qabtaan oo tafaxaytaan cududood meel suuqeeyaan wada shaqeeyaan digtoonaadaan gabadhu ay diyaarsanaato maaragtay oo dee intii ay isdaafici karto isdaafacdo haddii ay dhib la kulantana ay soo sheegto dadkii u geysanay ay soo sheegto ma jiraan wax tababaraa oo aad gabdhaha siisaan oo la xiriira sidii ay isku difaaci lahaayeen wacyigelin baan siinaa wax kasta wacyigelinta ka weyn gabadha in la baraarujiyo ay ka maaragtay ogaato sida wax u jiraan wixii dhici kara inay ay ku dhici karaan marka aniga waxaan siinaa waa baraarujin iyo wacyigelin aad baad mahadsantahay wasiir waa kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaaliga adigaa mudan nagaanta ku soo dhaweynaya waa hagaag daawadayaal iyo dhageystayaal waxay ahayd wasiir ku-xigeenka wasaaradda